wafdi bilaarna uu hogaaminayo gudoomiyaha dhaqaalaha maaliyadda ganacsiga iyo warshadaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka dowladda federaalk Soomaaliya xubno ka kala socda dowlad goboleedyada dalka ka kala jira ayaa soo gaaray magaalada Garowe ee xarunta dowlad goboleedka Puntland. Wafdiga marka uu soo gaaray garoonka diyaaradaha waxaa ku soo dhaweeyay wasiiro xildhibaano ka kala tirsan dowlad goboleedka Puntland iyo madaxweynihii hore ee dowlad goboleedkaas ee Puntland Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Axmed Faroole oo ah senator ka tirsan golaha aqalka sare ee baarlamaanka dowladda federaalk Soomaaliya. Waxa uu horeyn warbaahinta la hadlay senator Cabdiraxmaan Maxamed Axmed Faroole oo sheegay inay halkan u yimaadeen wafdi ka kala socda golaha aqalka sare iyo dowlad goboleedyada in lagu dhameystiro shuruuc shan ah oo ka soo gudubtay golaha shacabka. wafdi ballaaran oo ka socda aqalka sare guddiga maaliyadda iyo ganacsiga oo hogaaminayo senator Cabdi Axmed Dhuxulow iyo maamulada ama dowladaha xubinta ka dowladda federaalka oo shan ah mid haddaan u nimi oo Puntland ay ku jirto 40 iyo dhowr qof ah waxaana meeshaan loogu ballamay in la dhameystiro shuruuc shan ah oo golaha shacabka ka soo gudubtay golaha sare aqalka sarena yana ay review ku sameeyeen arkeen haddana la tashi la isugu yimi magaalada Garowe Puntland in wixii ay ka qabaan shanta maamul ay kala tashadaan guddiga maaliyadda iyo ganacsiga oo sharcigaas iyagu aqalka sare wada. Sidoo kale waxa warbaahinta la hadlay senator Cabdi Maxamed Dhuxulow dhagdheer oo ah gudoomiyaha guddiga maaliyadda dhaqaalaha iyo ganacsiga waxa uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay sida diiran ee loogu soo dhaweeyay xarunta dowlad goboleedka Puntland ee Garowe. waxaan u nimiday macnaheedu kooban inta uu sheegay senator Cabdiraxmaan waaye dalku maadaama uu federaal yahay aqalka sarena uu yahay aqalka dowlad goboleedyada metelaya waxa qasaba shuruucdu markay ka soo dhamaato golaha shacabka iyo golaha wasiirada oo aqalka sare soo gaarto inay ku soo noqoto dowlad goboleedyada si ay u xaqiijiyaan inay ku jirto metelaadoodii ama wixii dowlad goboleedyada baahidoodii si uu u noqdo sharcigaasi sharci dalka uu ku dhaqmi karo oo aan ciidina dhibaato ku qabin soo u noqdo sidaas ayuu macnaha ku fadhiyaa imaashadeena yahay. Cabduqaadir Cabdullaahi Warsame Galmudug TV.